وأغلاق درو وشرف حمو إن حلبان حساند له إن مانتا وحوا أسكري كل بسن عيدنك قرنك الصومالي عنك الصومالي إن كل بسن إنه مانتا وحوا سوق قميص قدال مرسن وحوا فير لدعو وسنك وديك كانوا قدق البرلمانك قدوميها قدق أنشحة haddii aysan arintaas tallaabo sharci ah aysan ka qaadan ninkan xasaanada aysan kala noqon waa markaas baarlamaan ma jiro guddi anshaxna ma jiro iska daaya markaas ninkan askariga ah dhibkaas loo geystay waa askari Soomaaliyeed calanka Soomaaliya uu xiran yahay ma aha nin shacab ah waxa dariiqa socda sharaftiisa iyo karaamadiisa shacabka Soomaaliyeed ayaa ilaalinaya calanka Soomaaliyeed uu xiran yahay ayaa sharaftiisa waxa shacabka ilaalinaya marka waxaan soo jeedinaynaa haddaan ummadda Soomaaliyeedna meel kasta ku dhaqan dalka iyo dibadiisa intaba haddaan ninkaas xildhibaan Firimbi la yiraahdo tallaabo sharci ah aysan ka qaadin dawladda oo san guddiga anshaxa aysan tallaabo ka qaadin haddii aysan guddoonka baarlamaanka aysan tallaabo sharci ah ka qaadin oo markaas baarlamaan ma jiro meesha la isaga kala taga markaas bal fiirsada waxa uu ku dhaqmaa ninkan bal indhihiina ku arka waxa aan ka hadlayo runtii wax aad iyo aad loogu xumaado waaye hooyo Soomaaliyeedaan ahay wadankan wax badan ayaan ka soo shaqeynay waad arkaysaa waxa aan wada dhiig waaye mataqaana askari ay duu horteen mataqaana isagoo gacan qaadayn ayaa mataqaana nin xildhibaan ah oo xasaaniyad leh uu iska dhowraayay marxaatigeeda haya waliba aniga aamir videoga ayaa haya ninkaas mataqaana muwaadinka ah oo waliba nin weyn uu ahaa tama hin dhalinyaro oo adkeysan karo in mataqaana sankiisa la jibiyo runtii nasiib darro waaye mataqaana baarlamaanka mucaarad iyo muxaafid inta uu u furiyahay waxaan u baahanahay kaliya mataqaana qofka fikirkeyga ana iskale fikirkiisa asaa iskale laakiin maanta u arkaysa mataqaana haaf ya garbasaarkeyga mataqaana u jax awood kale waa u waayay meelan hataa mataqaana ugu gurmana waa weyn marka hooyooyinka Soomaaliyeed maalin walba in laga ilmeysiyo maalin walba markay farxad yar mataqaana ii sheegay noo soo korodho because anaga waa daal marna oday dambe inaan ku hoostiisa aan galno marka wax loo dul qaadan kara maaha xildhibaan xasaanad leh in uu askari Soomaaliyeed sharaftiisa ku tunto ilaalinaya asaga amnigiisa ilaalinaya xildhibaanada amnigooda marka waxa waa intaas ka badan waxa wax loo dul qaadan kara ma ahan in askari gacmihiisa gadaal marsan ee runtii waxa waa feer sida ugu garaacay uu sanka dhig ka keeno marka waxa waa haddii guddo jiro iyo haddii guddoon jiraan iyo haddii guddoomiye baarlamaan uu jiro iyo haddii baarlamaan jiraba haddaysan sharcigaas iyo qodob aysan runtii waxa waa baarlamaanka uu qorayo qodobka 29aad firqadiisa 6 haddaysan ninkan anshaxi iyo aysan kala noqonin xasaanada de baarlamaan ma jiro meesha la isaga kala taga marka taasan soo jeedinayna waa in tallaabo sharci laga qaadaa ninkaas askariga calanka xiran marka uu toos waxa waaye sanka kaga jibinayo feer kama xoog yara laakiin wuxuu ilaaliyay sharafta iyo xasaanada xildhibaanka laakiin xildhibaankii hadduu ilaalin waayo xasaanada iyo xurmada calanka Soomaaliyeed ee ninkaas uu xiraa amnigiisana sugaaya waa tallaabo sharci laga qaadaa tallaabo sharci waa in laga qaadaa ku soo celcelinaa tallaabo sharci waa in laga qaadaa ninkaas baarlamaanka kuma soo laaban karo